waxaan maqlaayay magacyada especially baryahan markaan aan ciyaaraha daawanayay ciyaartooyda galmudug ka yimid waxaan ka maqlaayay magacyo aanan hore loogu ogeyn al-Zakhrawi Munye Iker Macow oo Puntland iyo Jubbaland iyaga naftigooda magacyadaas wata macnaheedu waxay tahay tan waxay daliil u tahay cadeen u tahay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa kale oo odayaashii ciyaartooydii hore xulka qaranka oo legendiga ahaa ay halkan sheegeen da'dooday sheegeen anaga waxaan u haysanay Hamza inuu 40 sano jiro iyo 45 laakiin Maxamed Ismaaciil wuxuu cadeeyay 45 sano inay isugu dambeysay waa Hamza markii uu tahriibayo way macnaheedu ciyaartu wuxuu bilaabay 60 sano ka hor 8 sano jirta markii 8 sano waxaan kaftan ku soo gabagabeynayaa gudoomiyaha Maxamed Mursal yaa wuxuu yiri madaxweynuhu waa loonaynaay khudbadda naga soo gaabi waxaan ku yiri lulo ma laga yaqaan koonfur iyo baydhabo hundray hayte yaa filayna ay leedahay waa loonaya taas macnaheedu waxa way isdhexgalkii xitaa siyaasadda waa ku dhex jiraa ciyaaraha kaliya maaha ilaahay baa mahad iska leh oo caawa noo suurtageliyey inaan munaasabadan halkan gabagabada aan isugu imaanno aan u dabaaldegno ciyaartii sida nabadda ahayd noogu soo gabagabowday alxamdulilah waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida booliiska nabad sugidda iyo ciidanka xoogga oo xaqiiqdii iska kaashaday inay sugaan amniga oo noo suurtageliyey 40 dad gaaraya inaysan dhicin hal incident hal shil inuusan dhicin oo ay runtii muujiyeen xilkasnimo iyo mas'uulnimo in ciyaartaasi noqoto ciyaartii ugu nabadgelyada badnayd Afrika waa mahadsantihiin aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa ciidamada qalabka sida waajibaadkeena sida gudateen waxaan u mahad celinayaa ganacsatada oo runtii qayb kaalin muhiim ah ka qaadatay in ay encourage gareeyaan ama dhiirigeliyaan dhalinyarada ciyaartooyda oo runtii hadda bilaabay ama bilaaw u tahay ciyaaraha aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa ganacsatada magacyadooda halkan ay ku yaalaan qaarna runtii aysan caaw imaanin aysan ka soo qayb galin xafladan munaasabadan wanaagsan aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed dhalinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qayb galeen ee qayb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida taasoo runtii muujisay ama noo muujisay xaqiiqatan bisayl dulqaad iyo ilbaxnimo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa macallimiinta kooxaha sida u tababareen dhalinyarada iyo sida wanaagsan ay u ciyaareen oo nadiif ka ah oo aanan dhibka iyo aan lahayn aad iyo aad yaan uga mahad celinayaa garsoorayaasha iyagana waa u mahad celinayaa iyo xulkii hore ee qaranka oo aan caawa xasuusanay oo aan siinay munaashaha iyo shahaado sharafka aan siinay ay ka mid yihiin Yusuf Shaqaaq Aways Fundi Maxamed Ismaaciil Bashir Jenyo macallin Qariidi iyo Maxamed Muslimiin aniga waxaan isku dhownahay Maxamed Muslimiin
ninkaasaan wada ciyaari jirnay laakiin raggan 80 jirada ah iyaga sheegay caawa da'dooda waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta runtii waqtiga uu galiyay iyo siduu uga shaqeeyay iyo siduu determine u yahay inuu Soomaaliya level kala geeyo cabdiqani waa mahadsantahay aadan kaaga mahad celinayaa shaqada wanaagsan aad umad u hayso waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir sida wanaagsan uu u martigeliyay soo dhaweyntiisa iyo marti soorkiisa Umar Finish waa mahadsantahay media sida mas'uuliyadda ku jirto oo meediaha runtii uga qayb qaateen inay u cover gareeyaan oo sida habsami u socodka iyo sida uu la socodsiinayay shacabka hadba ciyaaraha si u socdaan aad moodo inay Juventus iyo New Madrid iyo ay u ciyaarayaan dhalinyaradan aad iyo aad yaan runtii aan idinka mahad celinayaa waxaan idin leeyahay kulligiin shanta kooxood iyo gobolka Banaadir shanta kooxood oo ka kala timid dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaan leeyahay hambaliyo xaqiiqatan qof walba oo ka soo qayb galay waa guuleystay waa wada guuleysanay maxaa yeelay waxaan muujinay inay Muqdisho nabad tahay waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno waxaan muujinay inaan walaalanahay saas darteed waxaad runtii tusteen astaan ama calaamad wanaagsan oo adduunka oo dhan maalmo uga hadlayeen Soomaaliya oo loo yaqaano meel colaadeed meel dhibaato ka jirto meel ummadooda suumaan karin inaad muujiseen shacabka Soomaaliyeed ciyaartooyda iyo maamulkaba inaad muujiseen iyo media sida aan sheegay in Soomaaliya ay hore u socotay ay horumarna gaartay runtii tartankani wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa annaga ummadeena ee Soomaaliya iyo dalkeenaba runtii waa dal wanaagsan dadkeena waa dad wanaagsan laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negative ah ciyaartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yiraahdo xaq jirka oo dhalinyaradu inay ku mashquulaan ciyaaraha oo ay ciyaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca ugu horeeyo xaq jirnimada qabyaaladda kama sokayso xaq jirnimada qabyaaladda waxyaabaha Soomaaliya meeshan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u fool xun ah laakiin caadi iyo dhaqan noo ah dhaqankaas iyo caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dawladnimo iyo magaalo joog dhaqanka qabiilku waa dhaqan miyi marka laguma maaragtay laguma wadi karo ama lama dhexgelin karo adduun casri ah oo ilbax ah ay ugu horeyso hab dawladeed muqaadaraadka wuxuu yahay daawo maxaa yeelay dhalinyarada intay ku mashquul lahaayeen waxyaabaha muqaadaraadka ah oo maandooriyaha ah inay ku mashquulaan ciyaaraha iyo entertainmentiga waxaa xaqiiqo ah meesha intaas aan sheego negative ah ciyaaruhu waxay leeyihiin intaas in la mid ah oo positive ah waxa ugu horeeya oo la oran karaa midnimada ciyaaruhu waa astaan midnimo oo mujtamac aan isaqoon isu keenaya isbaraya walaaleynaya ay isdhex galayaan dalkeena waliba waqtigan hadda aan ku jirno oo aan raadinayno midnimada ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaysan ummaddu mid ahayn waa kala dhantaalan yihiin waxba ka maqan horumar kama hadli karaan mustaqbalka carruurtooda kama hadli karaan wax wanaagsan kama hadli karaan maxaa yeelay waa ummad kala maqan oo kala qaybsan ciyaaruhu waxa ay daawo u tahay wadaniyad qofku wuxuu jeclaadaa dalkiisa wuxuu jeclaadaa dadkiisa wuxuu arkaa in dalkiisa iyo dadkiisu ay horumar tiigsanayaan raggaasi caawa sheegay da'dooda waqtiga ciyaarayeen oo aan arkayna inay ahaayeen xul qaran ay dibadaha aadayeen ee koobka soo qaadayeen calanka Soomaaliyeed yaa dhabarka u saarnaa
macnaheedu waxay tahay waxay muujiyeen ama ummadda u muujiyeen inay matalayaan ama ay matalayaan dalkooda astaan qaran yihiin qof walba oo Soomaali ah marka oo waqtigaas jiray wuxuu dareemayaa proud qab yu dareemayaa in dadka kooxdii qaranka ay soo qaaday koob ay soo qaaday ama ay soo badisay iyadoo huwan calankoodii iyo astaantoodii waxay leedahay dawladnimo oo waataad aragteen hadda اسبوعي وسعودي عيارو سعودين وضع شقين الدولة ده إذا ماذا أبنيه محل هذا كوحها سبورتسكا شعبك لن يرضى ميديها كان عصنا سوى وضع شقيين وحويه وحيلا ذا هي إن أنا أرجع معانك الدولة لماذا إلا ذا هي أمنيه إيوه عيدا كا qalabka sida shaqada hayaan waxaan arkayay dadka banaanka taagnaa oo sugayay inay Engineer Stadium ay galaan oo 3 kilomitir 4 kilomitir saf ugu jiray si nabad ah macnaheedu waxay tahay waa astaan dawladnimo waa astaan ilbaxnimo waa astaan nidaam iyo kala dambeyn macnaheedu waxa soo dhan waxa aasaas u ah in aan proud ku noqono ama qab ku yeelano qarannimadeena ama aan xoojino qarannimadeena waxaan marka leeyahay hambalyo guud ahaan gaar ahaan waxaan leeyahay hambalyo kooxdii koowaad ee kaalinta koowaad gashay ee Banaadir gobolka Banaadir aniga dad badan ay weydiiyay waxay yiraahdaan ma Banaadir ahayd mise galmudug yaa ahayd mise Jubbaland ahayd waxaan yiraahdaa waxaan ahaa Banaadir ma aha meesha awowga ku dhashay waa meesha adiga aad ku dhalatay way kaalinta labaad galmudug iyagana waa u mahad celinayaa runtii dadaalka ay muujiyeen iyo ciyaarta wanaagsan oo xirfadda iyo maxaan ku yiraahdaa farsamada lahayd ee ku ciyaareen iyagu naftigooda runtii kaalinta labaad sahal ma aha in la soo galo kaalinta labaad haddii ay soo dhawaadeen oo ciyaartii ay tagtay Rigoro macnaheedu waxay tahay kaalinta koowaad waxba idin mid jirto sanadka soo socda waa imaan kartaan kaalinta koowaad insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo inay tan bilaaw noo noqoto oo aan ku ciyaarno tii weyneed isbartiibadii weyneed oo 80,000 qaadaysi Muqdisho Stadium Soomaaliya inaan tagno hadduu Ilaahay yiraahdo oo ummadda Soomaaliyeed kulli meel kasta ay joogaan ay ka soo wada qayb galaan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu